Kenya uu meel xun gaaray kadib khilaaf ay Kenya ka horisay xeebaha shidaalku ceegaago oo qiyaas ahaan dhan ilaa 15 baloog oo ay weligeedba Soomaali lahayd kana fog xeebaha waqooyi ee Kenya laakiin ay Kenya ku doodisay in mulkiga bologyadaasi la isku haysto oo horena la isku galay maxkamadda xalinta khilaafaadka ee ICJ laakiin ay dawladda Soomaaliya dhawaan iibisay waana doodda ay dawladda Soomaaliyana garafka ku dhufatay oo ay sheegtay in aanay jirin haba yaraatee bologyo shidaal oo ay iibiyeen isla markaana ay ka war dhowrayaan go'aanka maxkamadda kadib khilaafkaasi labada dal oo gaadhay heer Kenya cayriso safiirkii Soomaaliya ee Nairobi fadhiyay una yeeratay keedii Muqdisho ayaa xiriir diblomaasiyadeed oo ay la soo sameeyeen hogaamiyayaasha Afrika qaarkood waxa uu keenay in dawladda Kenya dib uga noqoto go'aankeedii horiyay xiisadda diblomaasiyadeed ayaa barnaamijkeena xogta dahsoon waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixin aynu ka soo ururinay sababaha dabada ka riixaya sheegashada Kenya ee xeebaha Soomaaliya ee shidaalku ka buuxo ugu horreynba haddii aynu taariikhda dib ugu noqono sheegashada iyo doodda madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ee dhulkaasi waxa ay qayb ka tahay dardaaran uu kaga tegay aabihii Jomo Kenyatta oo ahaa madaxweynihii u horreeyay ee Kenya iyo aasaasihii imbaradoriyadda ganacsi iyo siyaasadeed ee qoyska reer Kenyatta oo noqotay takaliye ee ka soo baxday shirkadihii ganacsi ay qoysasku lahaayeen ee dalkaasi Kenya iyadoo dhammaan baayacushtarkii kale ee qoysasku ku magacoonaayeen ee dalkaasi ay u burbureen ama hoos ugu dhaceenba khilaafaad soo kala dhex galay qoysaskoodii dardaarankii Jomo Kenyatta siiyay inankiisa Uhuru waxay qayb ka ahaa horumarinta ganacsiga qoyskiisa reer Kenyatta xafidaadda booska siyaasadeed ee qoyska iyo haddii uu maalin Kenya madaxweyne ka noqdo inuu ka midho dhaliyo wixii isaga u qabsoomi waayay oo ahaa la wareegidda dhulka xilliga loo yaqaanay koonfurta fog ee Soomaaliya oo ah gobolada Jubbooyinka Soomaaliya oo Jomo Kenyatta rumaysnaa inay yihiin dhul Kenya leedahay sida ku cad buugga Allah u naxariistay diblomaasiga weynaa ee Axmed Maxamed Aadan Qaybi oo muddo 30 sanadood ka badan ka shaqeynayay heerka ugu sareeya ee siyaasadda arrimaha dibadda oo uu ka gaaray heer wasiir markii dabana noqday gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland intii u dhaxaysay 1997 ilaa 2005 waana buuggiisii ugu magac daray Danjire Qaybe iyo dunida waana buugga ay ku caddahay kulankii ay wafdi ay Soomaaliya u dirtay dhanka dalka Kenya oo uu ka mid ahaa mudane Qaybe laftiisu sanadkii 1963 ay la yeesheen kulan madaxweynihii u horreeyay ee Kenya Jomo Kenyatta oo aabbo u ahaa madaxweynaha haatan Uhuru Kenyatta kalana hadleen mulkiga dhulkii loo yaqaanay NFD oo ay Soomaaliya doonaysay markaasi in lagu soo daro waana dhulka haatan loo yaqaano waqooyi bari Kenya oo ahaa dhul ay Soomaaliya sheeganaysay muddo dheer dad Soomaaliyeedna ku nool yihiin ambassador Qaybe waxa uu buuggiisa ku cadeeyay in markii ay kala hadleen Jomo Kenyatta dhulka NFD uu ugu jawaabay in gobolka NFD uu yahay deegaan aan muran ku jirin oo caloosha Kenya ah Kenyana ay xitaa leedahay gobolada Jubbooyinka ayna dalbanayaan inay Soomaaliya u soo celiso taasoo keentay aan fariir iyo la yaab ku dhacay waftigaasi oo si degdeg ah dalkoodii dib ugu soo noqday waana gobolada Jubbooyinka oo xilligaa sheeganayay Jomo Kenyatta oo haatan xeebaheedii ku murmayo Uhuru Kenyatta waana gobolada Jubbooyinka oo ka dhisan yahay maamul goboleedka Jubbaland waana gobolada Jubbooyinka oo ah dhulka ay haatan ku sugan yihiin ciidamada nabad ilaalineed ee dalka Kenya ka yimid waana labada gobol ee Jubbooyinka oo qayb ka tahay xeebaha shidaalka leh ee Uhuru Kenyatta halganka u galay inuu ka dhigo xeeb Kenya leedahay waana dardaarankii aabihii oo wax walba ka horumarinayo arrinta kale ee ku riixaysa madaxweynaha Kenya inuu ilaa heer ka gaarsiiyo ku doodistiisa dhulkaasi waa ganacsiga qoyska reer Kenyatta iyadoo tan iyo markii Uhuru Kenyatta madaxweyne ka noqday dalkaasi sanadkii 2013 uu sii xoojiyay saameyntii iyo awooddii ay lahayd shirkadda ganacsiga ee Kenyatta taas oo noqotay mid ka mid ah sharikadaha ganacsi ee ugu ballaaran gudaha dalka Kenya waana shirkadda qaadata mashaariicda caalamiga ay qaadataa ay ka dhigtay inay sii ballaarto maalinba xigta shirkadda Kenyatta oo ku hawlanka ganacsiga dhinacyada beeraha caanaha bangiyada warbaahinta dhismayaasha filooyinka iyo xarumaha martigelinta oo kor loo qaaday tayeynteed isla markaana aan ku koobnayn gudaha waddankaasi oo kaliya laakiin ay shirkadda Kenyatta dibadda u talowday oo xuduudaha ka gudubtay fiditaanka lagu sameeyayna ay ka dhigtay mid ka mid ah hantida ganacsi ee ugu waaweyn dalka Kenya
waxaana qoyska reer Kenyatta u soo kacaya dhalinyaro fara badan oo mustaqbalka doonaya inay sii wadaan dardaarankii Jomo Kenyatta ee ahaa kobcinta ganacsigooda iyo ku lug lahaanshaha siyaasadda dalkaasi. qoyska reer Kenyatta maaha oo kaliya magac taariikhda Kenya galay sida kuwa kale ee hal mar awoodda intay qabtaan dabeetana aan raad dambe oo ay leeyihiin la arag, laakiin qoyska Kenyatta waxa uu weli ka muuqdaa fiqda sare ee buurta Kenya. waxa uu marayaa 2 madaxweyne iyo 2 marwada koowaad. dhinaca maalgashiga bangiyada dalka ku yaala ayaa shirkadda Kenyatta waxa ay leedahay qiyaastan $2 saamiyadaas, iyadoo tusaale ahaan bangiga ganacsiga Afrika oo ay saamiyadiisa 24.92% ay leeyihiin qoyska Kenyatta uu yahay haddana baanka iskale 13% saamiyada shirkadda weyn ee dhanka warshadaynta ee National Industry. ninka ay madaxweynaha Kenya walaalaha yihiin ee Mohoho Kenyatta ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mashiinka dhaqaajiya kobaca dhaqaale ee shirkadda Kenyatta. waana ninka cilmiga dhaqaalaha ka soo bartay jaamacad ku taala gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka. waana ninka u xilsaaran sidii qoyskaasi u xasuusnaan lahaayeen dardaarankii aabahood ama awowgood Jomo Kenyatta. arrimaha kale la filayay in Uhuru Kenyatta ku riixayaan doodaha iyo sheegashada noocanihi waa kor u kaca dhaqaalaha Kenya oo si xawliya ku soconaya, kaasoo ay laba huraan tahay in loo sii meeleeyo shidaalkii kaydka ahaa ee uu mustaqbalka u baahan yahay dhaqaalaha Kenya si uu u soo jiro oo u sii kobco, maadaama ay suuragal tahay inay sanadka 2050 u baahan doonaan 3 jibaar shidaalka ay maanta isticmaalayso, oo tirada dadkeeduna ay labalaami doonto, baahida ay tamarta u qabtaana ay 3 jibaarmi doonto. waana kayd shidaal raadinta caalamiga ah ee xitaa dalalka waaweyn ka maarmi waayeen, kuwaas oo dunida qaarkeed qaarna xoog ku qabsaday, qaarna deyn iyo deeq intay isugu dareen rahmaad ku dhigay. tusaale ahaan dalka Mareykanku waxa uu haystaa oo gacanta ku haya wadanka shidaalka badan leh ee Ciraaq, halka Ruushkuna ay qabsadeen Suuriyada la jaarka ah. Shiinuhu waxa uu isticmaalay siyaasad ka duwan xabadda, isagoo deyn iyo deeq isugu daray dalalka dunida saddexaad badankood, dabeetana u diiday inay lu kale meel u dhaqaajiya. waana duulaanka dhaqaalaysan ee markii la dhamaystay Afrika iyo Bariga Dhexe la isugu tagay oo laga tallaabay badda Atlantiga, la isuguna tagay wadanka ay haatan xiisadu ku ogan tahay ee Venezuela, halkaas oo Shiinaha iyo Ruushkuba Mareykankuba u tageen in wadankaasi u noqdo kayd shidaal oo ay mustaqbalka warshadaha dalkooda isticmaalaan. Kenya waxay noqotay dalka shanaad ee ugu qanisan qaaradda Afrika marka laga qiyaas qaato hantida ay dadka wadankaasi gaarka u leeyihiin, sida maalka, lacagta caddaanka, sinaanta iyo ganacsiga aan ka yarayn heerka qandaraasyada. sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee uu diyaariyay bangiga Afro-Asia oo warbixin sanadle ah ka soo saara hantiilanimada Afrika. waana warbixinta kaalinta koowaad ee hantiilanimada Afrika siisay dalka Koonfur Afrika oo isugeynta hantida gaarka loo leeyahay ay cagacagaysay $722 bilyan oo dollarka Mareykanka. kaalinta labaadna waxaa gashay Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar oo hantida dadkeedu haystaan gaarayso $330 bilyan oo dollarka Mareykanka. kaalinta saddexaad iyo ta afraadna waxaa kala fadhiistay wadanka Nigeria oo dalkiisu leeyahay $253 bilyan oo dollar, iyo boqortooyada Morocco oo iyana hantida gaarka loo leeyahay gaarayso $122 bilyan oo dollarka Mareykanka. Kenya oo kaalinta shanaad gashay ayaa lagu qiyaasay hantideeda gaarka loo leeyahay $104 bilyan oo dollarka Mareykanka. iyadoo dhaqaalaha gaarka loo leeyahay ee Kenya yaala ay in badan oo ka mid tahay maalgashigii ay wadanka geliyeen dadkii Soomaalida ahaa ee qurbaha ka soo noqday iyo kuwo kale oo qaxooti ahaan ku tagay Kenya dabeetana ganacsi ka bilaabay meel wacan ka gaadhay. waxaana jiray in kastoo ay Kenya badeecado badan u soo iibgeyso suuqyada Soomaaliya, haddana baac musirka labada dal u dhaxeeya marka laga saaro qaadka miirooga waxa faa'iidada badankeeda hesha Soomaaliya oo Kenya u dhoofisa badeecado ay ka mid yihiin buuriga ama tubaakada, daawooyinka iyo qalabka mashiinada. tusaale ahaan warbixintu soo saaray xafiiska tirakoobka qiyaasaha heer qaran ee dalka Kenya ama Kenyan National Bureau of Statistics ay sheegayso in sanadkii 2017 ay Kenya la soo degtay badeecado ka yimid Soomaaliya oo qiimahoodu gaarayay $153 bilyan oo shilinka Kenya, halka ay sanadka Kenya u dhoofisay dhanka Soomaaliya badeecado qiimahoodu gaarayay oo kaliya $52 bilyan oo shilinka Kenya. badeecadaas oo u badnayd wax soo saarkeeda miraha cuntada sida khudaarta oo kale, laakiin ay Soomaaliya qaadka miirooga u tahay seeladiisa koowaad ee loo dhoofiyo, halkaas oo ay Kenya u dirto qiyaastii 70 tan oo qaadkaas maalin walba. waana qaadka qiyaasta qiimaha la isu dhoofiyo ka dhigaya ciribta oo madaxa la kormariyay.
dhanka kalena magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa lagu daray liiska hantilanimada ee magaalooyinka Afrika iyadoo liiska ka gashay kaalinta lixaad. magaalooyinka Afrikana waxa ugu hanti badnaatay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo isugeynta hantida dadkeedu ay gaadhay 276 bilyan oo dollarka Mareykanka. kaalinta labaadna waxaa gashay magaalada Cape Town ee isla dalkaasi xilli ay magaalada Qaahire ee dalka Masar iyana kaalinta saddexaad gashay. kaalinta afraadna magaalada Lagos ee dalka Nigeria. kaalinta shanaad ee ku xigtana waxaa noqotay magaalada Durban ee Koonfur Afrika. sidaana magaalada Nairobi waxay ku soo gashay kaalinta lixaad ee magaalooyinka ugu qanisan qaaradda Afrika. waana koritaanka iyo kobaca dhaqaalaha Kenya inuu wadankaasi ka sii fikiro guri ka soo galaa cid walba. dowladda Kenya oo marahay dal miisaaniyadiisa sanadlaha aynu kabi jirnay iminka waxay damaacisay doodna ka keentay xuduud badeedka Soomaaliya qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Kenya waxay bedeleen qadkii xuduud badeedka iyagoo qayb ka mid ah baddeena sheegtay inay iyagu leeyihiin. haddaba maxaa sababay in Kenya damacan waaliga ka soo galo qaybtaasi yar ee badda Soomaaliya ka tirsan? baaritaano kooban oo aqoonyahano Soomaaliyeed ay sameeyeen ayaa lagu ogaaday in arintani ay ka dambayso oo ay gadaal ka riixayso dalka Norway. oo sabab maxaa ku kalifaya? marka hore meel ku qoran ma jirto cid qaybtaasi yar ee baddeena ka tirsan malaay ama kalluun darteeda kugu qabsanaysa, balse waxaa jirta arintaasi ka weyn oo ku riixaysa dalalka Kenya iyo Norway. 2006 ilaa 2009 baaritaano ay wadeen shirkado laga leeyahay Norway ayaa waxay ku heleen oo ay ku ogaadeen ceel shidaal oo aad u weyn, waana sababta dhabta ee ku riixaysa Kenya inay damaaciso. Injineer Rashid oo kamid ahaa aqoonyahanadii Soomaaliyeed ee baaritaanada sameeyay arintani soo ogaaday ayaa inooga waramaya. meeshan hadayna waxba ku jirin la isku qabsadeen waa arrin muhiim ah tahay Soomaalidu inay fahanto. yani meeshan haduu kalluun ku jiro la isku qabsadeen mar ujeedada ay Norway ka leedahayna waxa wada Kenya ka leedahay oo Norway ay caawinaysan waxa weeye teen iminka gurigaaga haduu kugu qabsado qofkii ku qabsaday mad Soomaalidu inuu wada naqaado wadamayntu waxay tagaysaa ninkan ama wax si ama wixii halaydin qaybi. marka dawladda Kenya sina kuma khasaarayso saayada Soomaaliya iminka hadda malaha su'aashaas way ku xigtay. yani labada arrin oo muhiim ah oo Soomaaliya oo daciif ah iyo meeshaas oo hadayna wax ku jirin khayraad aniga kulli fikradeyda horta nawaaxigaas waa nawaaxi shidaal badan lagu tumeeyo maxaa yeelay kalluun la isku qabsadeen. marka dadka Soomaalida ah ee waxaan saxiixay inay isweydiiyaan bal loo baahan yahay waa meeshan corruption baa ku jira dabcan, laakiin ma isweydiisa khayraadka dhulka badda hoosteeda ku jira ee aad qalin ku saxiixayso inta uu leeyahay. وسؤال ما يسكت جرت بهوليو قبو هدي لبو يري باترول بدن باهلكا كجرا بيهانيغا اسكالي قرانكاني بيع ما نقون دولكايغونا بابو ما قالو بدايدونا إيب ما أها marka ay sheekadu halka marayso waxa ay ugu soo dhacdo sheeko uu bari iiga sheekeeyay sarkaal ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliya ee maraha libaaxyadii Afrika. gabar Soomaaliyeed oo ku nooleed xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa maalin iyadoo ka gudbaysa xuduudda waxa aflagaadeeyay mid ka mid ah ciidamadii ilaalada xuduudda ee Kenya. kadib iyadoo aad u careysan ayay waxay dacwo geysay saldhigga ciidamada Soomaaliya ee goobtaasi ka agdhawaa. markii uu dhageystay dacwadda gabadhaasi Soomaaliyeed askarigii xukuumada saldhiggaasi wuxuu si degdeg ah u amray ciidamadii Soomaaliyeed xuduudda joogay inay heegan galaan oo askartu isdiyaariso. dawladda Kenya ay arintani waxay ku noqotay wadna qabad iyagoo si degdeg ah fariin ugu soo diray taliyihii ilaalada xuduudda ee Soomaaliya. waxay ka codsadeen inay xaaladda dejiyaan oo ay raaligelin ka bixinayso iyagoo sidoo kale shaqo fariisin iyo xabsiga isugu daray askarigii gabadha Soomaaliyeed aflagaadeeyay. taliyihii ciidamada Soomaaliyeed ee waqtigaasi ayaa u sheegay inay kaliya ku qancayaan in gacanta loo soo geliyo askarigii gabadhaasi Soomaaliyeed aflagaadeeyay. arintii waxay gaartay madaxdii ugu sareysay dawladda Kenya iyaguna waxay durba xiriir la sameeyeen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya si arinta loo dejiyo. dawladda Soomaaliya oo arintan warba ka hayn ayaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya waqtigaasi u sheegay inuu howlo badan hayo sidaa darteed amray in wada xaajood ku galo isla askarigii xukuumaya halkaasi. kadib waxa wada hadallo ay yeesheen askarigii iyo madaxdii dalka Kenya lagu dhameeyay khilaafka iyagoona magdhow siiyay gabadhii Soomaaliyeed askariga Kenyaanku aflagaadeeyay. bal Ilaahay baa idinku dhaarshay xaaladaasi iyo tan hadda aan ku jirno ee madaxdeenu u sujuudayaan bal isla barbardhiga.
horaa loo yiri adduunyadu waa harka labadiisa gelin waxaase shaki igu jirin in annagu aynu isbadnay oo heerkan isgaarsiinay waxaase hadda ii muuqata rajo wanaagsan waxaana dareemayaa inaan haysano madax daacada oo xaaladan inaga bixisa waxaan rajeynayaa in dalkeenu dib u kaco magacii iyo sumcaddii ka luntana dib u soo ceshto ugu dambeyn waxaan idinka codsanayaa in fariintan aad sheergalaysaan oo aad gaarsiisaan Soomaali Maxamed si aan hurdadan aan ku jirno uga kacno oo aynu dalkeena dib u dhisano waa saaxiibkeen Cabdirasaaq Gumaysidiid oo idin leh dalkeenu cadawga ka xurooba nabaadina